waxaana wanaagsan daawada meel walba oo aad joogtid kusoo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Marcadda Show. Qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay duqeymaha ka dhacay deegaano ka tirsan dalka Itoobiya, dhibaatada soo gaartay TPLF, madhaba dowladaha Ruushka iyo Shiinaha diyaaradahooda dagaalka inay ku bireen howlgallada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya, dowladda Ruushka oo garab istaag u muujisay dowladda Turkiga xilli baahi weyn ay u qabtay, Taliban weerarada ay ka geysteen 3 magaalo oo waaweyn oo ka tirsan dalka Afghanistan iyo kaymaha gubanaya ee dalka Turkiga. Macluumaadadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka kugula wadaagi doonaa. Kusoo dhawow mar kale falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Marcadda Show. Fadlan like saar muuqaalka si uu u gaaro saaxiibo badan, aragtidaadana qaybta hoose ku reeba. Mahadsanid. Waxaan ku hormari doonaa Itoobiya. dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya ayaa u muuqanaya inay galeen wajigeedii saddexaad kadib markii ciidamada dowladda Itoobiya ay diyaaradaha dagaalka ay soo kiciyeen, kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay kula dagaalamayeen jabhadda TPLF ee xoogga ku haysata magaalooyin waaweyn oo ku yaala gudaha dalka Itoobiya. TPLF marka la qiimeeyo deegaanada istiraatiijiyad ahaan ay gacanta ku dhigeen waa kala bar dhulka Canfarta, waxaana lagu waramayaa in iminka duqeymo xooggan ay kala kulmayaan diyaaradaha droniska kuwaas oo aan la garanaynin cidda kaxaynaysa. Todobaadyadii ugu dambeeyay diyaaradaha dagaalka ee dowladda Itoobiya ayaa duqeymo la eeganaya fariisimaha ciidamada TPLF, laakiin waxay u muuqanayaan kuwaas inaanay waxyeello aysan u geysan. 24 saac la soo dhaafay duqeymo lala eegtay fariisimo ciidamada jabhadda TPLF ee ku sugnaayeen ayaa sababay khasaare ugu xoogganaa oo TPLF soo gaara, iyadoo laga qabsaday magaalooyin dhowr ah. Deegaanka Awra oo ka mid ah deegaanada TPLF ee ku xoogganayeen ayaa lagu waramayaa duqeyn xooggan inay ka dhacday. Macluumaadka soo baxaya waxay sheegayaan duqeymahaasi inay sababeen dharbaaxo xooggan oo soo gaartay ciidanka TPLF, kuwaas oo isaga baxay magaalooyinkii duqeymihii ugu dambeeyay ay ka geysteen diyaaradaha aanan cidi wadin. Wax badan ayay duqeymahan ay wax ka bedelayaan marka la eego halka ay u socdaan dagaalada halkaasi ka dhacaya. Horay duqeymahan waa ay u dhici jireen balse ma aysan jirin diyaarada drones oo gantaale intaasi la ku garaaci jiray fariisimaha ciidamada TPLF ee ku sugnaayeen. Waxay horay u qabsadeen ku dhawaad 7 magaalo oo muhiim u ah, laakiin iminka waxay u muuqanayaan in hal magaalo xoog looga saaray gelinkii dambe ee shalay kadib markii lagu duqeeyay. Deegaanka Awra iyo deegaano kale oo hoos tagayeen duqeynta ugu xooggan ee ka dhacday, waxaana lagu waramayaa dhimasho xooggan inay soo gaartay ciidanka TPLF. Markii deegaankaasi isaga carareen waxaa halkaasi gaaray ciidanka isgarabsanaya ee federaalka Itoobiya, kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay u diyaar garoobaya dagaalka xooggan ee ka dhanka TPLF. Duqeymahan ayaa waxaa lagu waramayaa sidoo kale inay waxyeello u geysteen dadka deegaanka ahaa. Ciidamada ammaanka ee dowladda TPLF ayaa muuqaalo ay soo duubeen kuwaas oo ay adag tahay in warbaahinta ama baraha bulshada la soo dhigo, waxay ku muujinayaan siday ugu faraxsan yihiin meydadka tirada badan ee waxyeelada ka soo gaartay duqeymihii diyaaradaha droniska ahaa ee lala eegtay ciidanka TPLF. Diyaaradaha droniska ayaa waxaa lagu waramayaa inay leeyihiin mid ka mid ah dowladaha Ruushka iyo Shiinaha, waxaase u badan tahay inay leeyihiin dowladda Ruushka, kuwaas oo taageero xooggan u muujinaysa ciidanka federaalka. Waxaana taasi ay ka dhigan tahay in Ruushka si toos ah ugu biiri karayo howlgalka ciidamada dowladda Itoobiya ay ka sameynayaan waqooyiga dalkaas, sababtoo ah wuxuu dhaqangelinayaa heshiiskii dhanka militariga ahaa oo ay la galeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Itoobiya. Waxaa lagu waramayaa in calooshood u shaqaystayaal dalka Ruushka ka socda ay qayb ka yihiin howlgallada halkaasi ka dhacaya. Sidaasi si lamid ah 8 bilood ka hor ciidamada dowladda Shiinaha ee calooshood u shaqaystayaasha ah ayaa duqeymahani fuliyay kadib markii taageero dhanka maaliyadda ay ka helayeen Imaaraadka Carabta. Waxaana taasi ay wax badan ay ka bedeshay hanaankii dagaalada. Iminkase dowladda Ruushka ayay u badan tahay inay si toos ah ugu biireen calooshood u shaqaystayaasha iyaga taageera dagaalada halkaasi ka soconaya. Dhinaca kalena magaalada Waldhiyo wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamada jabhadda TPLF ay ku hareeraysan yihiin magaaladaas. Magaaladaasi waa muhiim marka la eego istiraatiijiyadda goobta ay ku taalo. Inkastoo buuraley ay tahay, haddana waxaa soo mara wadooyinka muhiimka ah marka la isaga kala gudbayo Amxaarada iyo sidoo kale Tigreega, ama marka la isaga kala gudbayo Itoobiya iyo sidoo kale Jabuuti. Inkastoo magaalada muhiim ay tahay, haddana ciidanka ugu badan oo xitaa Liupolis ay qayb ka yihiin gudaha magaalada ayay ku sugan yihiin. Waxaase ku hareeraysan ciidanka TPLF sida macluumaadka aan ku helayno. Waxyaabaha ka soo kordha dagaaladaasi xogaheena kale ayaan ku ogaan doonaa markaana aan eegno.
madaxweynaha dalkani Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa mahadcelin waxa uu jeediyay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay inuu garab istaag u muujiyay xilli ay aad ugu baahnaayeen kadib markii telefoonka ay ku wada hadleen madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa lagu waramayaa inuu si aad ugu mahadceliyay kadib taageeradii dowladda Ruushka ay u fidisay dalkani Turkiga xilli ay dhibaatooyin xooggan ay ka jiraan gobollo dhowr ah oo dab xooggan uu ka kacay madaxweynaha dalkani Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa telefoonka kula hadlay Vladimir Putin wuxuu ugu mahadceliyay sida uu kaga qayb qaatay daminta dabkaasi iyo soo dirista diyaaradaha dabdamiska kuwaas oo la sheegay in ka badan 3 diyaarado helicopters ah in dowladda Ruushka ay ku taageertay dalkani Turkiga si loola dagaalamo dabka xooggan ee ka kacay gobollo waaweyn oo ku yaala dalkan madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inuu caafimaad u rajeynayo dadka dhaawacyada ay soo gaareen arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dabaylo xooggan ay ka kaceen qaar ka mid ah gobolada dalkani Turkiga ku yaala waxaase mararka qaarkii dowladda ay ku eedeysaa PKK inay ka dambeeyaan dabka xooggan ee ku sii faafaya deegaano dhowr ah oo ka tirsan dalkani Turkiga kooxda Taliban waxaa lagu waramayaa inay isku dayday inay weerar ay ka geysatay 3 magaalo oo waaweyn oo ka tirsan dalka Afghanistan waxaana lagu waramayaa in gabi ahaanba lagu guuleystay in la iska soo saaro kooxdan weerarkan ayaa dhacay gelinkii dambe ee shalay waxaana kooxda muqaawamada isku dayeen inay weeraraan gobolka lagu magacaabo Lashkargah iyo gobolka Kandahar oo ka tirsan dhanka koonfureed ee dalka Afghanistan macluumaadada soo baxay ayaa waxay sheegayeen in kooxda sidoo kale weerar ay ku qaaday gobolka lagu magacaabo Xiraad oo ah gobol aad u weyn gelinkii dambe ee maalintii Jimcaha ahayd dowladda Afghanistan ciidankeeda ayaana lagu waramayaa inay iska caabiyeen kooxdan oo doonaysa inay gacanta ku dhigtay 3 magaalo oo waaweyn kooxda Taliban ayaa gacanta ku dhigtay magaalooyin waaweyn oo dalka Afghanistan ku yaala gaar ahaan deegaanada xuduudda dhaca iyadoo ujeedada ay ka lahaydna ay tahay in ay gacanta ku dhigaan ilaha dhaqaalaha ee dalka Afghanistan qaybaha ugu dambeeya ee falanqaynta haddii aan eegnana dowladda dalkani Turkiga ayaa shaaca ka qaaday inay ku guuleysatay in la damiyo dab ka kacay 1 goobood oo ka tirsan dalkani Turkiga 6 ruux ayaa ku geeriyooday dabkii ugu dambeeyay ka kacay goobaha kaymaha ee ku yaala dalkani Turkiga wasaaradda kaymaha iyo beeraha ee dowladda Turkiga ayaa waxay ku dhawaaqday maalintii shalay in 1 goobood oo ka mid ah 101 meel oo waxyeello kala duwan uu ka soo gaaray dabkaasi in lagu guuleystay in gabi ahaanba la baqtiyo dowladda Turkiga ayaa shaaca ka qaaday sidoo kale in ay ku dadaalayaan sidii gacanta loogu dhigi lahaa ama loo kontrooli lahaa dabka xooggan ee ka kacay kaymo waaweyn oo ku yaala dalkani Turkiga wasiirka wasaaradda deegaamaynta ee dalkani Turkiga Beker Baktirmenli oo warbaahinta la hadlay wuxuu shaacu ka qaaday in gaadiidka noocyadiisa kala duwan ay ka qayb qaadanayaan daminta dabkan oo ka kacay deegaano ka tirsan magaalooyinka Antalya, Mersin iyo sidoo kale Mugla oo ah gobollo dhowr oo ku yaala dalkani Turkiga wasiirka waxaa kaloo shaacu ka qaaday inay caafimaad ay u rajeynayaan dadka dhaawacyada daran ay soo gaareen waxaa kaloo uu sheegay in dowladda ay gacan weyn ay ka geysan doonto sidii dabkaasi gabi ahaanba loo baqtiin lahaa dowladda Turkiga ayaa dagaal xooggan waxay kula jirtaa dab ka kacay gobollo dhowr ah oo la leeyahay waxa uu sii baahayaa xilli dabaylo xooggan ay ka kacayaan gobollada dabka uu ka dhacay